qaybo badan oo ka mid ah dunida ayaa maanta waxaa laga xusayaa maalinta loo asteeyay saxaafadda adduunka. Hay'adaha u dooda xuquuqda saxaafaduna waxa ay soo bandhigayaan warbixino kala duwan, kaasi oo kaga hadlayaan tacadiyadaha iyo dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha. Maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ayaa lagu cilaamiyay shir ay hay'adda UNESCO ku qabatay magaalada Windhoek ee dalka Namibia sanadku markuu ahaa 1991, waxaana maalintaasi wixii ka dambeeyay hay'adaha loo aqoonsaday in ay 3 May tahay maalinta saxaafadda ee xorta adduunka. 2018 hay'adda UNESCO waxa ay hogaamin doontaa xafladii 25aad ee maalinta saxaafadda caalamka, waxaana si wadajir u qaban doona xafladani hay'adaha UNESCO iyo dowladda Jamhuuriyadda ee Ghana, waxaana lagu qaban doonaa isla caasimadda wadankaas ee Accra. Sanadkan ayaa waxaa halkudhig looga dhigay ilaali, hubi saxaafadda iyo cadaaladda iyo u hoggaansanaanta sharciga, midaasi loo arka in ay tahay baahida kaliya ee dabooli karto saxaafadda iyo isla xisaabtanka arrimaha siyaasadda. Waa kana xafiiska madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres oo fariin u soo diray dowladaha caalamka inay ixtiraamaan saxaafadda xorta ah. A free press is essential for peace, justice and human rights for all. It is crucial to building transparent and democratic societies and keeping those in power accountable. It is vital for sustainable development. Journalists and media workers shine a light on local and global challenges and tell the stories that need to be told. Their service to the public is invaluable. Laws that protect independent journalism, freedom of expression, and the right to information need to be adopted, implemented, and enforced. Crimes against journalists must be prosecuted. On World Press Freedom Day 2018, I call on governments to strengthen press freedom and to protect journalists. Promoting a free press is standing up for our right to truth. Thank you. haddaba waxa aynu ka hadli doonaa muhiimadda ay leedahay saxaafadda iyo saxufiyiinta caalamka. Inta badan saxafiyiinta caalamku waxa ay u dhabar adeegaan kana shaqeeyaan horumarinta ummadahooda, iyagoo u ifiyo meesha bulshada ay u socdaan kana shaqeeya horumarinta nabadda, midnimada iyo cadaaladda. Soomaaliya oo ah meesha ugu halista badan wariye ka shaqeeya ayaa haddana culayska shacabka haysto waxaa qayb libaax leh ka ah dhibaatooyin ay abuuraan wariyaasha qaar aan aqoon saxaafadood lahayn, kuwaasi oo aan ku dhaqmin anshaxii saxaafadda marka afka qalaad loo soo gaabiyo ethics of journalists. haddaba wariyaasha Soomaaliyeed qaarkood ayaa shacabkooda u sheego hadallo xanaf leh oo kicin kara una horseedi kara dagaallo iyo burbur u dalka galo. Saxaafaddu ma in ay siyaasadda oo kale tabisaa? Waa kana wariyaha BBC-da Yonik Cali Nuur oo arrintaas sharaxaya. saxaafaddu ma ahayn siyaasaddu isku mashquulsan waxbarasho horumarka inay ka hadasho deganaanshaha ka hadasho caafimaadka tacliinta waajibaad badan bay na sugayaan.